mahad celinayna ilaahay baa mahad leh horta dadka marka hore gacanta ku haya ugu horeeya safiirka u fadhiya Soomaaliya Yemen u fadhiya iyo guddiga jaaliyada Soomaaliyeed ee Yemen fadhida waxaanu leenahay sida uga hawl gasheen iyo sida u soo warcelinaysaan iyo sida dadka u soo qancinaysaan doonaysaan in xogtooda heshaan waa ku mahadsantihiin leenahay dawladda Soomaaliland kaalintii aan ugu jirtay waa naga gabteen hal qof baa ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasiir isugu tagtaan oo aastaad oo ay isugu timaadaan oo ku tuutaysaan oo xabaalaha kaga wada daba tagtaan 9 qof inta aan ognahay inta looga 42 qof bay geeridu maraysaa 42 qofba waxa loo ogyahay in qadar mooyaan inta kale ay yihiin dhamaantood reer Soomaaliland inta kalena ay Soomaaliya yihiin qof ka hadlayna ma jiro wasiir ka hadlayna ma jiro dadka ha laga hawl galo xabaalahooda ha lagu aaso waa Maxamed Aadan Xaaji Cabdiinan kaygu nin wasiirku xogeenoo kaysta la yiraahdo habeen ka hadlay oo wasiirka xogeenka arrimaha dibadda wuxuu yiri 13 qof baan maqlayo reer Soomaaliland kaysa waxa la arintu sidaa ma aha hadii ay cidi danaynayso reer Soomaaliland danaynayaan wasiirka arrimaha dibadda uu jooga Saad Cali Shire madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siidaan u sheegayna waa dadkoodii dawladda jaarka ee xiriirka wacan ka dhaxeeyo xulufaynu nahay kuwa xiriir bay naga dhaxeeyo waa tin dekada iyo madaarada la siinaya dadka waxa u qabtaan oo dadka ha u gurmadaan oo dadka ha u kacaan baanu leenahay waxaan u mahad celinayaa waliba TV-ga la yiraahdo SBC ee maydka rogrogayay ee arrinkaas soo diray yiri dadkoodii dhinteen waxaanu doonaynaa magacooda oo saddexan soo gudbiyaan aad iyo aad baanu TV-ga iyo cid kasta oo islaam oo arrinta xil iska saarto aan balyeynaya anigu waxaan dhalaynanta la yiraahdo Selma Kaysa Yusuf waxaan ummadda Ilaahay iyo islaamka ka codsanaynaa agoonna ay ahayd inanta yar agoon aan ka codsanayaa in maydadka naloo aaso oo nala tixgeliyo oo nala eego hoos naloo eego dadka yaga geeriyooday aan madaxweynaha yagii ka hadlin barasaabiyadayadii ka hadlin aan cid noo hadashay aan jirin anigu waxaan dhalay waan aabbaw ahaa inanka la yiraahdo Deeq Aadan Axmed Biixi bishii 3aad 16keedii ayay arrintaasi dhacday intaaba waxay noo ahayd geeri iyo boroor ayay hooyooyinkii iyo xaafadihii ay u ahayd annaga horta wixii wax noo qabta ee xuquuqdeeda noo raadiya ee dhibaatada raadiya ayuunba imbakba waan cadeynaa dawladno ah dawladda Soomaaliya ee federaalka haddii ay noo doonto dadka yaga dadka dhibana baanu ee dadkoodii la laayay imikana iyada ku dhawaaqday oo jidii ugu horeysay iyada ku dhawaaqday oo sheegtay oo tiri waxaanu u direynaa maxaan ahay wafdi baanu u direynaa waxaanu ku guubaabinaynaa in ay dawladda Soomaaliya ee federaalka ah aanay ka hadhin dadka ama maydkooda aasidooda ha noqoto ama xuquuq raadidooda ha noqoto waxaan dhalaynanta ayaan Axmed Aleeli la yiraahdo qasanayna dadkaas ay noogu hawlgeli lahayd dadka ay weyna xuquuqdooda say noogu raadin lahayd dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa dadkii inii soo dhintay inii soo halgabay haday aabayaashooda agoon bay hadinantaydu haday aabayaashooda iyo haday waalidiintayadii iyo annaka iyo dhamaanba umaynin soo halkasidoodii maynin yeelin dadkaas umaynin kicin umaynin gurmanin ilinka waxaan ku dhalaynaa dawladda Soomaaliland taxara yarun baa nagu oodateeno tirada Soomaaliland baan laakiin waxa ma qabatin waxaan ma tagtantoona ma jirto dalka yaaliin ee la yiraahdo dad islaam ah horta marka oo horeysa inay naga aasaan oo aanu samirka qaadano oo aanay nagu dhaqdhaqaajin ayaanu ka codsanaynaa TV-yada ka hawlgalay iyo dawladda ka hawlgashay Soomaaliyana waanu mahad celinaynaa waxba Soomaaliland oo dhan maayo sababtu tahay dadkoodii oo waran bay arkaan Caasha Cabdirasaaq Maxamed Cabdibaaxir baan leeyahay inanta wax tuukumiintii oo cadaan imika waaya ma jirto laakiin inanta ana dhalay insha Allah anagu dadka waan ka samirnay xukuumadda Soomaaliya waxaan leeyahay madaxweynaha farmaasho wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka u jooga Yemen dadka idinku ba mas'uulka idinka u soconaya insha Allah saa wadaan wadwada dadka marka macluumaadka laga heshaan meedkaasa waxaan leeyahay dawladdu dadkeedii weeye dadkii codeeyay weeye dadkan badda galay haday ka aamusan